xafladda Premier waa xaflad sanadlaha oo qabato wakiilka boqortooyada UK oo fadhida gobolka Victoria Linda isla markaasina shahaado sharaf lagu guddoonsiiyo dadka sida lacag la'aanta ugu shaqeeya jaaladaha kala duwan ee ku dhaqan gobolka Victoria. And it's fitting that the Premier's Volunteer of the Year receives the award named for Dame Elizabeth Murdoch. Now we know that 1 in 3 Victorians regularly volunteer. That's more than 1.5 million of us. Ka wasiiro iyo xildhibaano ka mid ah baarlamaanka Australia sidoo kale waxa ka mid ah dadkii shahaadooyinka ku guuleystay gudoomiyaha jaalada Soomaalida Faarax Warsame iyo gudoomiyaha ururka muslimiinta Maxamed Muxiidiin. I think it's a recognition of contribution of people to the community, and I think volunteers play a very important role, and even in the Islamic Council of Victoria, volunteers make the core of our services as well, and they do some wonderful work in the community. I think you can't take that away, and whatever awards people might win, there are millions of volunteers out there who are doing more wonderful service. waxa garabkaaga taagan gudoomiyaha jaalada Soomaalida Faarax Warsame isla markaasina ka mid noqday ee nasiib u yeeshay inuu ku guuleysto jaayisada sanadlaha ay bixiso boqortooyada ay wadankan Australia Faarax bal ka waran jaayisada lagu guulay abaalmarinta lagu guuleysiyay iyo muhiimadda ay leedahay. waa maasantahay guuleed marka hore ku salaamaya abaalmarinta la siiyay waxa weeye qofkii ka si mutadawacnimo ah si volunteer ah ugu soo shaqeeyay jaaliyadda ha noqoto ama bulshada qaybaheeda kale ha noqdaan. marka abaalmarintu waxaan ku helay shaqadii adiga 10 sano ka badnayd oo aan jaaliyadda qaybaheeda kala duwan ka soo shaqeynayay. marka laga bilaabo for example waxaan ka soo shaqeeyay raadiyaha oo macnaha community radio aan ka soo shaqeeyay. waxaan ka dib ka shaqeeyay sportiga taan ahaa presidentiga maaragtay one of the soccer clubs aan ahaa 4 sano asagana soo joogay dabadeed jaaliyaddan soo gudbay jaaliyadda almost hadda 3 sano xoga 4 sano ku dhawaad baan joogaa. marka la isu geeyo 10 sano iyo ka badan yihiin intaan aan ku soo dhex jiray arrimahan jaaliyadda sidaas marka abaalmarinta lagu siiyay. isku soo wada duubo xafladan ka dhacday aqalka dawladda ee gobolka Victoria ayaa ku soo dhamaatay jawi degan. Guuled Cabdi Wahan, Horn Cable TV, wadanka Australia, ee magaalada Melbourne.